Oh my god caawa sheekadani inaba caadi ma aha war waxa iiga sheekaysay gabadhu intaan aamini waayay baan ku uri gabadhii kula socday iiwa sababtoo waxyaabaha iiga sheekaysay macquul ma ahaynba intii hore Itoobiya iyo wixii ka sheekaysay maadaama anigu soo maray way ii sawirnaayeen okay yani caadi ba u dhageysanayay laakiin tan شيء كذا هاي النوبل لابو والله إنتن آمين ويبان كوري قبل كل سعودية كو إتوبيا كسر راعيسين خدك إيسو قلي إنت إيسو حريري سيبان وذا هالليني أركي واحتر هذا الله هاوار تاسد إلا وذي let's go تشيكات حلو حنوكو أكيد أيكو ستياريو عبايدي وحين تلو قيبي اسكو ديار ميس حرا السودان صباها دوي بحين هل كان هورت حوغاير بانكو كلا دواني waxaan ku kala duwanayn ma garanay sheekadayda inaad xasuutaan in kale anaga biyaha iyo wixii biskudki iyo wixii gaariga manolo soo saariyay dabr nafsag beeda dad yar yarayso hadii kale ka dhamaatana aday ku taala saasay ahayd anaga taayadu iyaga laakiin habeenkii marka la soo gaaro eeg maalinka dhan way socdaan soo maaha habeenkii inta la dejiyo baa wax loo qaybiyaa marka waxa laga rabaa wixii loo qaybinayay inay berito loo dhan ku soo dhaafaan habeenkii kale la sugaan ma fahmaysan yani waxa caawa loo qaybiyo بريو دو استعماليان عاونا واستعماليان هابينك كلي كسي خيغا waa inay maaragtay safka dan iska soo xaadiriyaan wayba fiican tahay oo waxay tiri alaabtani waxan iyagu qoliyaha Suudaantu iyaga haystay oo habeenkii bay deyntii safna galiyaan qofkiiba caagad biya iyo caagad sharaab iyo xabad biskud kaash waxa la dhigi jirto biskudka de wuxuu biskud loogu tala galay oo ma garanay xataa Soomaaliya waan ku cuni jirnay biskudka anagu khasharaba khashar magac saas kala anagu u naqaanaa fa Suudaanka saxaraana ka lagu isticmaalo المهم وحوغا يرضي وحبينك لو قيبيا مالكنا ودفعنتي ده صومالي واتقانانه ما شاء الله صومالي اني مثل ما يسمع هبينك لو قيبيا با ارورتي اوي بدي محل عنيا هبينكاسي كغو بخي وخي لسي المهم سي السعوديين waxay tiri saxaraa rafaad badan kumaanaan arki maadaama cuntadan iyo sahaydan iyo waxan Suudaan qoliyo iyagu maadaama maamulayeen waxba gacantooda ku jirtay anagu caadi okay laakiin waxay tiri rafaad ka yareen saxaraa ku aragnay waxay ahayd eg gawaaridan waaweyn waan ka wada simanahay anaga doorkeegi elektriyaankan ugu badnaa Soomaalidu way yaraayeen marka laakiin Soomaalidu iyaga badan gawaarida marka gawaari waaweyn bay ahaayeen sida nooca loo karaa sheegay group ba horta la saaraya marka group la saaro way fadhiisanayaan groupkaasi dhamaantood way fadhiisanayaan group kalena way taagnaanayaan eg fadhigu wuxuu ku fiican yahay sheegay fadhigu saxaraha de waa kan daska balaayada cadceeda qashinka waxa soo dhan dadka ku dhaco laakiin hada hoos jirtid kulaylun baad u dhimanaysaa mooyaane das iyo cadceed waxa ma arkaysid kuwa kor saaran marka waxay ku fiican yihiin yani leyd maadaama ay dhacayso gaarigu markuu socdo de waa kan de leyd u dhacba haba iska kululaatay laakiin waa neefsanaysaa ugu yaraan almuhim qaarba waxan bay ku fiicnaa de waxa kula dadsan soconi en habeenkiina u seexanaynay de waxaan yarna lagu qaybinayo maalinkiina ya habeenkiina u seexanaynay waxana lagu qaybinayo maalinkiina aan what the fuck egg habeen oo dhan way socdeen maalinkii oo dhan way socdeen habeenkii oo dhanna way seexanayeen inta waxa yar loo qaybiyo what the fuck barashada Soomaaliga meeshan marka habeenkii markan la seexanayo nimankan Suudaanta anaga xataa sidaa un bay ahaayeen dab bay shitaan cuntay karsadaan wuxuu iyagu way wataan yani cuntadan ay dadka u wadaan mid ka duwan bay wataan oo day waaba isla iyagii cunto khatar ay soo qaataan oo neefaf bay soo qalqashaan oo hilib bay wataan oo meesha magaalada inta ku soo bixin bay qalaan hilib bay wataan ma qarnay hilibku ma qormamaya المهم دي بريس بكرتدانو دون كاليس كارك دواي isla iyagii anaga maxaa naga gal tahriibayaan baan nahay waxa nagu jiray bay tiri islaamo waaweyn yaa islaamo hada waa gabdho waaweyn oo dib badna oo ayda nacdasha annagii ka yaryareen gabdhihii baa xishoonayna bay kula waxay ku hadlayaan saxara lagu jiraa ilaahay ka cabsi ma jirto nacdashi diinta maxayga ilaahaaga ayd bay nagu dhameeyeen bay waxay sameyn jireen markaa islaamahani nimanka Suudaanta inta u tagaan bay hambooyinkooda soo qaataan oo gaarigu markuu soo istaaga bay kuleedahay anagoo ka cabsanayno isla nimankan tolo may waxba in weydiinayaan de wakan saxaraa qaarkood waa lagu maaragtay waa lagu qasbaayino iskuma wada jiraan almuhim waxay tiri anagu waan ka cabsanaa oo gaarigu markuu soo istaaga bay soo dago cuntadiini wixii naqaat markan lagu wadaado markay noo yeedhaan inagu wadaadaan kaalay hadaba raashinkiini wixii naqaat de waan badan nahay intaasoo 100 qof baan nahay saas markay waxayga noo siiyaan intaan ka fogaan karo baan anagu markaaba isnabnaa dad seexday iska dhignaa bay tiri laakiin islaamahan inta iyagu u tagaan bay ku wadaadaan iska warama seetihiin fiicantihiin qaarkood marka carabi yaqaan
cuntadoodana la cunaan habeenkii maba soo laabtaan bay ku leedahay habeenkii ma indhaba ma saaraba oo nimankan Suudaanta bay habeenkii oo dhan bala joogaan waxay sameynayeen Allahu a'lam laakiin anaga waxaan ku dhigi jireen bay tiri taa cunto man ka soo qaadanaynay maxaad idinku naga rabtaan maxay yahaynin anagaba daalacno raacan war heede marka wiilal Soomaali oo anaga nala socday baa ku yiri war heede idinku hadda rabtaan nimankan wadaha u furina gabdho yar yar baa nala socday waxay halkad gabdhahan yar yar u galaafanaysan hadda rabtaan idinku taa u hada maxaa idinka galay taa waad naga xuntihiin cuntadan ka soo qaadanaynaad ka xuntiin cunta haday tahay intii soo qaataan may anaga nagu soo laabtaan way seexan jireen bay kulada meesha kama bay soo laaban jirin ba aroorti marka gawaarida korayna un baan arki jiray المهم كوبا دبابي كربي تروحي سنين جيران لكن دوات كسي قياسانيسا يعني نمن المهم كوما قفيانو لكن سيد ورك ايغو ودي waxay hubtay boqolkiiba boqol inay ma garanayo okay waad fahanteen المهم waxay kula saxari waxaan ku jirnay 4 mise 5 cisho bay tiri ma si xasuusato inta muddaday ku jireen saxaraas baa waxana lagu dhibay tiri hadda xuduudkii Liibiya waad soo gaadheen anagu waan sii laabanaynaa qolyo kale oo Liibiyana idin imanayo oo idin kaxaynaya دمشي بان سكت شوقنا بتري خلاص ما هذا الحدود كيسو قاعدنا هذا الحين سوقينا ومدي الليبيان كنت إننا وريق يعني قولي أنا إسكلا بنيان ماشي مركا أنا وسيدي قد شوقنا بقى أنا قبض نلسعتي أي كورة دين أدوق متكيسيد أنا قلنا لله بنيسا أنا جوان يا ابني بتري قبض معناها ما إنا طلبت هذا دوق ربتها قبضي من ويديني مدي ذا كلام ما لقى لابسات شوقتها حد كوا ضام الله بنيان قبضي برار بقبصة ما الله بنيان وإسكليهين كان هاي قريبنا إكحيس قولي السودان markaan u laabaneen ku nori waxay gabadhu inay laabato ma rabtay way laabanaysaa waxay sheekadana nolol timaadeen ma ay gabadhani way laabanaysaa waan maxay hayday lacagteedii bay la baxaysaa iyo Suudaan bay joogaysaa gabadha markaan u noqonay ku nodhaano walaalde Suudaan saasay dhaheen adigu maada raba inaad laabatid gabadhu wayba barooranaysaa wayba qaracan tahayba way iska leeyihiin beentood weeyaan anigu Liibiyaan raba ha iga tagina please mama please ba meesha ka shaqeynaysaa دمشق بليس بقى شقيني سوا مايا قليان هذي كورادان ونلا تشوقي سايو لابن ميسي هذا قولي بيتجي ميسي خلاص وحلاقة هلا معها قبل دي وحي كل هذا أنجو أركينو وتشدنا أي مركي كوي ليبيان كي مادين يجون اللابنيين قبل دي نوك حيستان بيتي الآن قبل ده اسمه اللي جيجي إن يرون هيدو اللي علينا يودن كذي معقول بما هم بقى قبل مرة بتيني لابط يا العكت كبحنا يا محل كيك كانين حتى ما قرني بيتر قبل أسميش كده بيس قبل أني منك السودان تأهب الله لابتي هذا يرمان كون السودان تبغى يسكك حيستان مية كهلان ما قرنا يانو ما لها بورو قاسي جيستان ومو يدي كل واحد تردد يدي يقاني وين للسعوديني وركيد الله ما هايو الآن كان إذا الله الله يبيتر وركيد الله ما هايو أنا مركان أبيني وعي من قبل دي وعن كودي ولا من قبل ساسي سحرين نجا لابتي ها والله بلا بيتر ويقول دارتي لابتي قبل إننا ما صدن قبل دا وركيد هيني أي قليل السودان تلا لابتين قبرداس حسبي الله ونعم الوكيل وقبر ير ويان هدف بيل هيد يربي أسعتي ما انتظن جيري إيه نلال مدنه لقم أوجا قبر ير مركها مش لقى علينا waxay isfahmeenay asxaab isku dhow ahaayeen mabsuud iyo gabadhan la socoto muddadii yareedada meelaha hadday soo marmarayeen bay isfahmeen markii lagu yiri idinka waa la inaga reebayaa oo gabadhan Suudaan bay ku laabanaysaa uma adkaysan karayaan waxay barooran karaan way baroorteen intii ninka Suudaaniga la hadli kareen way la hadlay ninka Suudaaniga ma waxba ka maqlayaa way hadhaysaa mar hadduu yiri waa siduu ku yiri wayaan gabadhan uu la laabanaya gabdhii baa dhulka isla dhacay oo baroortay oo qayliyay oo balaayo meesha ka iyagiiba waxa loo qaraacay sida dameeraha haba ooyina lahayda mabsuud horta ninka Suudaanigi meed ahaan buu uga kacay saana intuu soo maro saana u sii ayada awalba tacbaan ahayd oo itaaba un buu agtay qaadaba jabiyay Suudaaniguna mid naxayaba maba ahanba waan la harayaa gabadhaas waa siduu u yiri weeyaan wuna la harayaa bas gabdhi yaraaba la sasabeex lagu riday gabadh way laabanaysaa waa siduu sheegay ninku ya daba laabanaysaa ninku awalba iyagu biskaga amsiinaya meel laga laabtaa la joogay gabadhii uu la tagay الآن كجبر وركيد الله ما هيو على يتحال كوي ليبيان كان لو وريجي سي السعودين بوحل جيي وحير إج ركزوا أوكي صاد أفهمتن وحباسا إسكول حق القلدان فإنتن أوضون نشرح حياة إذن كنا إلى الصعدة وحل جيي وإسلا صحريه وياه مل ودربي كحرية حي أوكي دربي قاعد حديثة ضد باكوتشرا أي وجود هجين حتى نشرح حياة سيف يعني دقيسته أنا حتى عمرك قبله إيش شرحيين درق يا الله وبنكون فهمي ما قرني والله هنا نتنصا أصيش شرحيها إني فانسين كرو لكن وانسكو ضيّا إذنكو بس إلى الصعدة سيفي عن أوكي هذا الضد كان سيدي الله وضح لجيني يا مقفي سان وضع أجنها بهال حرو كلية ما وكمانان حرو أوكي ضد كان صحراء إسكسر عينها هالحرو موذ التجيان ضد كان والله كلا قيبنا يا أوكي هذا مثلا تصال نسينا يا أوكي أنا جاي جروب كلا وحوتا
magafe kale okay waxa la ii wadaa xiro magafe group kale iyaguna meeshan ila jooga nin kala iskale isaguna magafe kale meesha markaan nimaadno hadaa مثلا anaga magafiina loo geynayay hadaan ahayn 10 qof isagu dad inta u soo diro ma dhahayo xiradayda keen ee dad kale la sugaya isaguna uu iska leeyahay oo saxaraa ka soo socdo fa meeshan marka darbigan meesha ku xiran dadka la isku sugaa okay ina fahanteen ma rajeynaya because ani xataa waxba ma fahansin alaanka ana la sharax waxba si fiican ma fahansin almuhim xiradii bay tageen okay iyaga waxa iska lahaa nin kidaane la dhaho xirada kidaane dadkii yaqaan dad badan kula way soo maray way yaqaanaan commentiga ku soo qora waxa lagu yiri iyada iyo gabadhan saaxiibadeed idinka kidaana idin leh meeshan aad ku sugaysaan oo kidaana wuxuu soo dirsanayaan dad bas xaro uga soo socda iyaga markaa is wada raacaysan oo xirada ugu tagaysaan ninkan dad kalena waliid baa iskale maxay baa iskale John baa iskale Soomaalida soo tahriibay wada yaqaanaan xerooyinkan hadda magacaantooda sheegayo almuhim iyadu kidaana ahayd iyo saaxiibadeed ba saa marka iyadii loo keenay meesha magafe kama hadlayo waxaan ka hadlayaa meeshan darbigeed ee dadku ugu yimaadeen waxay ku aragtay walaasheed intu mutkhayilin walaasheed eeg gabadha waxaan niri gabadh baa iyada ka sii weyneed oo boosaasa ku noolayd walaasheed bay meesha ugu tagtay marka walaasheed isla meesha darbigii weeyaan laakiin way kala xidxidan yihiin walaasheed waxa iska lahaa waliid iyadu laakiin waa kidaane walaasheedan weyn marka way ogeyd inay mabsuud soo tahriibtay oo meeshii ku ogaataa inii sheegaya ay gabdhahan isku meel kuma noolayn mabsuud waxay ku noolayd jigjiga oo edadeed bay la noolayd walaasheedan ka weyn laakiin iyadu boosaasi ku noolayd markii ay soo tahriibtay walaasheed ay boosaas isku waqti may soo tahriibeen ismana ogaya ay malaha Yaman iyo Suudaan iyo markii soo marmarisay malaha aabaheed ku yiri gabadha mabsuud baa tahriibtay xageed u socotaa soo laaba amal de mabsuud gabadha ka weyn waxay ku tiri aabaheed anu meel laga laabta ma jooga anu dib waxaan joogaa Suudaan oo waa kaasa mabsuud ay soo tahriibtay de labadeedaba lacagta naga soo bixiya gabdhihii baa isku dul baroortay isku ooyay isku calaacalay mabsuud laakiin ma ogaya iyadu ma oga reerkoodana may wicin aabaheedna ma wicin waxba ma oga gabadhan baa og gabadhan marka safar walba meesha ugu yimaado waxay ku tiraada mabsuud ma idin la socotaa gabadh yar mabsuud leeyahay ma ku aragteen saxaraha mabsuud ma ku soo aragteen qof walba aragtay ka wareysanaysa maadaama aabaheed u sheegay iyada uu ku soo laabo mabsuud baa iyada tahriibtay de meesha bay isku baroorteen isku calaacaleen maxaa ku soo tahriibi adi maxaa ku soo tahriibi gabdhahan isku meel may joogin gabadhan jigjiga joogtay tan boosaasi joogtay يا ولي إسكاريبا ده إسلا habeenkiiba iyagoon waqti wada qaadanin oon sheekaysan oo de iyagu isla malaha isku meel baa la inii wada iyagu wax ma fahansan hadda gadaal ka fahmi doontaa baa groupkii ay walaasheed la socotay mabsuud walaasheed la socotay baa lagu yiri idinku tiro buuxa waatiina wad baxaysaan caawo oo waliid baa la inii wada ninkii Liibiyaanka la hadlayna ku raadeen gabadhan anagu walaalaanahay hana kala reebina biliis karaakii ka Liibiyan wuxuu ku ogyahay isagu niman baa soo dirsaday waa inuu u geeyaan gabadhan waliid baa sitaa gabadhan kalena kidaana wata mawduucu idinku sajcishiin maaha waxaan qorsho ku socdaa de mooyidin almuhim midxuno Liibiyana baa been u sheegay wuxuu ku yiri war isku xiraad gidigiinaba isku xiraad gidigiinaba la inii wadaaye ha cabsanina halkaas aad iskugu imaanaysaan adigu caawad baxaysaa idin habeen dambe ka soo daba baxaysaa niyada dajiya karaakii kala been buu sheegay gabdhii way aamineen waxa ku raadin saas miyaha hal habeen bay iga dambeynaysaa walaashay ha waan ku baryaynaa meeshan anigu tagay keen walaashay haye way baxun bakuuri gabadhii farxad ellen waa adigo meel cidla joogo geeri go'ana ka waran dad amba walaasha amba hooyada amba aabaha meel ugu tigtid farxadda shucuubta ka sheekay gabadhii baa kala badbadatay rafaadkeedii iyo jugtii ku soo dhacday maanta dhan iyo mooy gabadhii loo dilay wayba iska ilowdayba wax la guuridin kuna isbuuc kale mad meesha si joogisan walaashaaba laga daba geynaya kana kii kala ha cabsanin been bayna ahayd waxa soo dhani ala iyo taal muddadii meesha laga rabay inay joogan markay joogeen baa lagu yiri wad baxaysan habeen dambe wax la inigeenaya de xeradii magafe caadiga ahayd meelay lacaga la iniga qaaday baa la inigeenaya de habeenkii way soo baxeen hadda xeradii magafe u socdaan maaha way socdeen say u socdeen buu gaari qalibmay gaari ay saarnaayeen wiilal kaliya 18 wiil baa qalibmay meesha waa saxaraya 4 mise 5 nin baa ku dhaawacmay bay tirada saxda ma xasuusteen daawac caadi laf dhabar jabay ma garanayo afartaas horta inay dhintaan baa la qaatay yaani daawac nooc ugu xuma wiil kamidana meesha uu ku dhintayba naftaaba kaga baxdayba waxay ku leedahay maskaxdan gaariga malaha saas buu ugu dul dhacay gaarigu maskaxda intan ma aragtaan caadi bay u soo go'day bay tiri intan oo dhan bay ku leedahay way banaaneed caadi bay u banaaneed حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله ويل كمان إذن شيء كوها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل كوحويا محسوسة مدان إذن لها قصة بلو جيدا الشيء كذا ببلو جيدا ولا الكيبة تهريبة يو أنتو ننكي مخلص كها ويمي بكوري بوس كيسا أنيجي إجلي ولا الكينا فصح
wiilkaa laftirkiisu ahaa laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah wad baa waday magafe iyo maxay ahayday waxba la islamaba gaadhinba innaa lillahi wa innaa ilayhi raajicuun intaas unbaa waday intaa yar unbaa waday walaalkii baa tahriibayay caayarba walaalkii intuu fasaxay ku yidhi magafaa booskiisa geli intaa yar unbaa qornayd inuuna liibyaba asagoon gaadhin uu saxaraha ku dhintay intuu gaadhigaasi la qallimo unbaa qornayd wiilku waxay tiri wiil iska yara weyn oo dee nimanka dhalinyarada iska waaweyn waqtigaas buu ahaa waaban idiin sheegay oo dee jaamacad buu ka dhigan jiray Addis Ababa tahriib iyo waxaa muu ogeyn wiilku wiil shaaba buu ahaa weligii muu guursan waxay tiri qaraaca noocii ugu xumayd afar wiil halkan daawacan yihiin waliba daawac caadi ma noocii ugu xumaa wiilkana naftaaba ka baxday horta naftu intaynan ka bixin ka hor rafaadkii de sakaratul mawdkii waxaas uu la rafaaday bitirsan arkayna u daawanayna weligay bay tiri anoon meed arkin ya wuxuu aabay tiri meedkii uu ku horeeyay abid indha saaray de maxayba meed indha saari waba yar tahay bay wadankiina waa taqaanaan qof weyn unbaa meed arki kara yani dadka waa weyn unbaa meedka meedha oo markuu qofku dhinto de iyagunbaa maaragtay ma garanayo ilma yar gabadh yar bay ahayd waxaas meedka iyadu may arag qofkii ugu horeeyay aragtayna meed caadi waliba maahe wiilay intaasoo dhaniba maqan tahay calayt xaal ninkii darawalkii liibyaanka ahaan isagana halkaasay naftu uga baxday isaga iyo waxa ku dhinteen wiilkan Soomaaliga 40 kale laakiin dhaawacun bay ahaayeen